seminaarkan saddexda cisho soconaya waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland waxaana ka qayb galay isuduwayaasha gobolkan Awdal ee wasaaradaha kala duwan maayarada degmooyinka gobolkan ururada rayidka saxaafadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana seminaarkan lagu baran doonaa qorshaha horumarineed ee 5 sano soo socota laga hirgelin doono gobolkan Awdal waxaana bixin doonta jaamacadda Eelo ee ku taala magaalada Boorama ugu horreyn waxa furitaanka seminaarkan ka hadlay Qadar Cabdi Qayre oo ah gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Eelo wuxuuna falanqeeyay qorshaha horumarineed ee 5 sano ee soo socota laga hirgelin doono gudaha gobolkan iyo kaalinta ay jaamacadda Eelo ka qaadan doonto tan iyo intii la yagleelay runtii waxa jirta waxay hadba jaamacaddu isku hawleysay meesha umadu u baahan tahay wad garan kartaa gobol ahaan waxyaalaha aynu hodanka ku nahay waxa kamid ah kheyraadka dabiiciga annagoo taa ka duulayna doorkii dawlad jaamacaddu waxay samaysay kulliyadda engineering waliba gaar ahaan geology marka taasi waxay maran ka tahay inayna jaamacaddu haynun afmishaar ama dilaalin afmishaar kaliya inayna soo saarin laakiin hadba baahiyaha gobolka ee jira inay runtii qayb kamid tahay waxaan filayaa in ay isla doonasho la tahay tababarkan oo jaamacaddu ay bixinayso iyadoo markii horena horumarada imika kale aan ka soo hadlay ka qayb qaadatay imikana ay jeceshahay inay iyadoo xubin ka ah runtii hadana guddiga horumarinta inay imikana ay tababarkan iyadu fulinayso sidoo kale maayarada degmooyinka gobolkan isuduwayaasha wasaaradaha kala duwan ee gobolkan ururada rayidka iyo qaybihii kala duwan ee ka qayb galaya seminaarkan ayaa iyaguna waxa ay falanqeeyeen waxyaabaha horumarineed ee 5 sano ee soo socota la filayo in laga hirgeliyo gudaha gobolkan agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee Somaliland Cabdirashiid Axmed Guulad oo gabagabadii furitaanka seminaarkan ka hadlay ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa baahiyaha gobolka ay farabadan yihiin marka la eego guddi ahaan waxa la idinka fadhiyaa baahida gobolka wasaaraddu walba gaarkeeda soo saaraysa iyo cid walba laakiin waxa muhiimad ay tahay baahidii gobolka maxaa mudan idinka taliifid weyn waa tahay baahidii gobolka wasaaradda waxa weyn beeruhu baahideedu way haysataa inay wasaaraddeedii toos ka tagtaa doonaya laakiin maxaa la doonayaa maxaa mudan sanadkan ee gobolkan baahiya way kala mudan yihiin baahiyo Soomaaliya baahida ugu mudan maxay noqonaysaa 1 2 3 4 sanadkan waxaan qaban karnaa 4 taas isku tagaysaa idinku Cabdi Fataax Ahmed Hadwanaag News magaalada Boorama.